waxaanu shaqadeedii u joojinay inaanu soo indhaindhano xafiisyadan dawladda runtii way jireen rag badan oo howlgar oo xafiiskoodii shaqadii sidii loogu taglay u socodsiin iyo qaar qufulinba waanu ugu tagnay isu duwayaasha shaqaaluhu ma shaqaynayo haddaan isu dugu goobjoog ahayn meesha joogin xafiisyada qaar waxay ugu saynan karaaniyadii iyo adeegaad ugu tagaysa waa dhibaatooyin gobolka haysta isu duwihii shaqaysan waayaa dee risaalayaashan keeno ilaanu shaqadan kari maayo taasaa ka wanaagsan waayo wuxuu qaadanaya waa xaaraan waxaanu uga digaynaa isu duwayaasha 8 subaxnimo inta ka horeysa in xafiiskiisa laga helo ninkii laga waayo Soomaalidu hadda waa calaaliyana la jeediyay reebel baan ahayo waxaasina kala saari mayso waxaanu leenahay hay'adaha dawladdu haddana iyaga laftoodu coordination lahayn oo wada shaqeynaa shaqa socon mayso waayo maalin hore waxaanu ka bixinay waa revenue-ga taxka la qaadayo hay'adaha dawladdu maxkamaddu arja loo qortaa aniga xafiiskaygan ka soo bilow arja loo soo qortaa haddaanu tigirkii raal lahayn islaamkii haddaanu lahayn yaan la qabanin leeynoogu taakeli maayo waxaan ugu celinayaa iyadoo qoraalan marorna ugu gudbiyay xafiiska laga helo inuu waajibkiisa gudan waayay haseex xidho cidii joogta haseex xidhato shaqaynoo balana cidii shaqada laga waayo xilli naga dhaxay ma jira xalay waxaan arkay wareysanayaan halkan isla soo galay annagu haddaan xukuumadaan afar gaaro tiknika ku filan waan soo qaban karaa wax weyn lama aha laakiin waxaanu diidaynaa in qof wax naga noqdo annagoo Thailand idinkuna hadda si yar xoqdaan dee dhibaatadeeda leedahay kaga hadhi mayno cidii waxa sameysayna xeeraanta inuu gudbeyna annagu waan aqaanaa sharciga saxaafadda hala soo xiriyo qafqaftiidin kula shaqeyn maayo xafiiskaas idinka iskatay nabadgelyo cidii wax yeelaysa shaqadana waanu ka joojinaynaa ilaa inta kiiska Soomaaliya ku cadaanayo ama waxnu ku yeelinayna